AMISOM runtii waxaad moodaa ciidamada AMISOM anigoon hadda ka abaalka dhacayn wixii markii hore ay yimaadeen ay sameeyeen oo ah ilaa iyo Baraawe oo 200 kilomitir u jirta magaalada Muqdisho inay gaaraan haddana ilaa iyo sanad iyo barkii ugu dambeeyay waxaad moodaa inuu dhaqdhaqaaqoodu aad u koobnaa inaanay howlgaladu inay joojiyeen inay shaqadii guud ay hayeen in ay joojiyeen oo ay ku ekaadeen keliyata inay xeryaha ay degan yihiin ay ku jiraan oo ay dhacdo xitaa haddii ciidan iyaga deris la ah oo agtooda degan oo Soomaaliyeed lasoo weeraro inay u gurman waayaan hadda waxaana meesha ka dhacay xalayto tan ayaa ugu dambaysa haddii ay u gurman lahaayeen nimankaasi waxba kamay noqdeen haddii ay xitaa ay jidgooyo ku samayn lahaayeen waayo iyagu waxay degan yihiin dalcadda u dhaxaysa Mudul Baraawe iyo Baraawe meel wanaagsan oo istiraatiiji ah bay degan yihiin xeebta hoostooda weeyaan hadday hoos u degi lahaayeen ciidakamay nabad gasheen nabadiidka sidoo kaleeto markii dagaalkiiba dhammaaday kadib ayay hoobiyayaal rideen oo runtii dad shacaba waxyeeleeyey oo ilaa 8 qof gaaraya marka waxaad moodaa in ay u baahan yihiin ciidamada AMISOM in xaaladooda dib loo eego mandatekooda la eego lala xisaabtamo shacabka Soomaaliya ma waana baabaan eeladeen ku dhamaatay bal ka waran ninka afartiisa wiil isaga la wada qaado maanta ka waran iyo abtigood la wada qaado aabayo 80 jiro waayeel hayaa imrigeegana dagaaladii sokay intaas waa taagnaa maalin ma aan haweysan inaan ka baxo waxaan diyaar u hay ciyaalkayna ilkaa ku qaato digibaad furaya sidii dadkaasi dhammaantood waxay ahaayeen dadkaasi u socdo hataa xoolahay tacsiiraas ugu qaybgalgaayeen oo 4 neef oo ariyaha la saarneed gaariga markay wajiga dhulka haldhigtiina qarada aakaygu dhagta ka furtay qof walba dusha la istaagay xabada ugu dhufay dadka markay xabada bilaabatay waa isku dhex yaaceen waa la iskor fuulay laba nimay nagu dareen meesha uu noogu talagalay marka uu nageey fariisto yiri markaan fariisanay bambado watay oo gaanjada ka furayay oo ma soo aadiyay waa dhici waasay waa qabsayaan dana waa nagu soo ridiyay mar saddexaad oo doonto waa nagu ridiyay mantaas anaga dagaalka ku wada haysanay markaas jilibka dhulka intuu dhigay oo risaastii nagu furo dalimintu dibkooda ogama diirna xayaani naga marka dadkaas la gumaaday naftoodii maalkoodii la baaba'shay ayaan nahay waxa kaaga daran dadka hadda leelnaayay dad xataa shaqo kula ma ahan waxyaabaha qaarkood ay leeyihiin anaga ciidamada AMISOM warkooda waa buunbuunisiin laakiin anaga shacabka haddaanay warkayaga ma qaadiin warkayaga xataa cododkayaga ma soo saartiin laakiin AMISOM kay sheegta waa soo saartiin dugaag baana cunaya hadba dox lagu jiidee Baraawe ka dhacday amaad ogtiin nimankii kabaabyada ay shabaab ahay xala ku soo dheelmaday 9 saac ciidankii Soomaaliyeed fooda istareen fooda AMISOMna hadda sida lagu yaqaan badi jawaanadii ay dalaq hoos u yiraan iyagoo la magasa mugi dagaalkii inyal leeday nimankii la raacdeeyay ee waagu soo cadaaday AMISOM madaxa kor u qaaday say rabaan shacabkii ugu qaybiya waxay madfaxayeen risaas haayeen ilaa awalba ruuxaana la joogtaya balcayay ahaayeen mugna ma jawaanaad ii gale mugna ma shacabkaad layhe beerka u dhindhe